leeyahay saa'ilkan sheekh khayr allah ku siiyay xaaskayga waalidkeed ma dhihi karaa hooyo iyo aabe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سؤال شني أتذكرنا وين صومرتي إن هذا الذي نوعاسة لو استعماله إذ أن والدك رسمك أهين وآبئي هو يلي لهذا haddii uun ixtiraam iyo qadarin loola jeedo wax dhibo ma laha xadiistu miday diidan tahay waxa weeyaan in abtirkii iyo xuquuqdiisii ciddii ku dhashay cid aan hayn inaad siiso oo aabbaha iyo awowyada iyo abtirkii rasmiga ilaan xuquuq buu leeyahay abtirku nasabkii iyo abtirkii intaad ka guurto ood cid kale u siiso samaysato inaad xuquuqdiina halka la marto taas way mid ahadiistu diidan tahay waana tan nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alayhi haram cidii abihi cid aan ahayn sheegata asagoo oo og jannadu korkiisa xaraam bay ka tahay marka day uun tahay uun kalimaad ixtiraam iyo loola jeedo qadarin لكن أن حقوق دي ودنين واحد وملا الله أعلم